maanta walaalahayga aan aad ka u jeclay ilaahay dartiisa aan u jeclahay oo aan khayrka iyo wanaagga iyo nafteeda waxaan la jeclahay waxaan idin wadaa saddex duco oo maaragtay wax kasta oo ilaahay kuu keeno kaaga filaanaya xanuun hadday tahay hadday wax la'aan tahay hadday ubad la'aan tahayba saddexda ducona saddex nabi oo waaweyn baa isticmaalay nabiyullaahi ayuub calayhi salaam nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam walaalayaal ducada koobaad maxay tahay nabi ibraahim ayaa isticmaalay markii dabka lagu riday muxuu yiri godka dabka markii lagu riday wuxuu yiri xasbunallahu wa ni'mal wakiil ilaahayna muxuu amray ya naaru kuni bardan wa salaama ala ibraahim magarateen ilaahay baa u amray dabkiina uu ka badbaaday nabiyullaahi yuusuf xabsi uu galay bidca siniin uu galay muxuu ilaahay ka bari muxuu yiri inma ashku bathi wa husni ila allah dhibkayga murugadayda ilaahay baan u sheeganayaa ilaahay muxuu xabsigu ka soo saaray nabiyullaahi ayuub 17 sano iyo dheeraad ayuu xanuun la jiifay muxuu sameeyay binaadan mu carar dhakhtar baa oo ma oran ilaahay buu dacwooday muxuu yiri allahumma inni masni yadurra wa anta arhamur rahimin ilaahu dhib ay taabtay dhib ay haystay ilaahu adiguna midka naxariista kuwa naxariista badan baa tahay marka walaalkayga muuminka ama walaasheeda muuminada ahay hadii dhib yar ku soo gaar ama xoolo la'aan ama maartay stress ama maartay xanuuno kugu soo noqnoqda ay sooranin adduunka dhan baa kugu fadhiistay ama buur baa ku fuushay waxaad xasuusataa ambiyadii oo dhan mid aan soo imtixaan ma lahan nabiyullaahi maxamed afdalul khaaliqiin asaga naftigiisa waa la soo imtixaamay dhib oo dhan baa lagu sameeyay quraysh oo dhan baa cayday saaxiroola lagu yiri waa la shiiday korkiisa calool mandheer geel lagu shubay isagoo sujuudsan sida doona laga yeelay marka walaal ha isdhihin adiga adduunka iyo buur baa ku saaran la soco ambiyada oo dhan inay imtixaan soo mareen marka imtixaanku soo marana ilaahay xasuuso fafirru ila allah ilaahay oo xaqiisa salaadaada badso